maraykanoo idil waxa laga hadalhayaa muuqaalka wiilkan iyo waxa uu ka sheekeeyay oo aad ka cabsida u ah wiilkan waxa uu leeyahay waxaan ka shaqeeyaa qubuuraha shaqadeydana waxa waaye in alla ilaahay markii la ii dhiibo taabuudka ama alwaxyada tan dadka meedka lagu soo dhaxgeliyo inaan qabriga dhax dhigo weeye shaqadeyda buu yiraahday in alwaaxaas aan u jeedaan alwaxyada tan u jeedaan in la soo hagaajiyo oo la isku soo xirxirana waxa ka masuula buu yiraahday ninka meesha iska leh oo qubuuraha iska leh baa ka masuula marka wuxuu dhowr mar waxa arkay ninkaas markuu ii dhiibayo meedadkaas inuu ii dhiibo alwaxyada qaar oo aad khafiif u ah oo yani aamoodo inaysan waxba ku dhex jirin oo dhexdooda ay maran yihiin marka wuxuu yiraahday arintaas aad oo la yaabo dhowr mar kadibna maalin maalmaha kamid ah ninkii u tagay waxaan ku yiraahday oo meesha isaga yani shaqada isiiyay oo meesha ka masuulka ah wanigow alwaxyada tan maxay faaruq u yihiin leena anigu yani aad u tabaryarna waa ahay moogsoonta buu yiraahday xoog weyn maahi marka alwaxyada maxay saasoo dhan khafiif ugu yihiin buu yiraahday waan weydiiyay kadibna wuxuu igu jawaabay jawaab aad u naxdin badan oo cabsiya jawaabtiisana waxa ay yiraahday ha i weydiin buu yiraahday su'aalo aad ka shalayn doonto jawaabtooda aadan oo naxay buu yiraahday isagoo marka muuqaalkaas markii uu soo duubay oo soo dhigay TikTok ku dhawaad 12 milyan baa daawatay kadibna muuqaal labaad uu ku soo duubay oo muuqaalka ku xigay wuxuu yiraahday muuqaalkaygii hore aan soo duubay oo inuu ku sheegay in alwaxyadu ay maran yihiin ninkii meesha iska lahaaba arkay kadibna wuxuu ugu yiraahday haddii aadan muuqaalkaas sida ugu dhaqsiyaha badan aad uga saari weydo shaqadana waa ka eriyayaa adigana xaaladaada ama nafsadaada riski ayay galaysaa ornaantii arrin kale oo ka naxdin badan ilaan waxa gashay uu yiraahday shaqo aan shaqadaada ahayn ayaa faraha la gashay dadka badankood marka qisada tan meelo badan baa loo kala qaaday dadka badankood waxay lahaayeen KFC oo yani xaysiintii ugu dambeysay xaysiin ay soo dhigtay KFC oo waxay ahayd in dadka markaas ay dubto oo cunooyinka dadka siiso ay dadka ka sameeyso xaysiin noocaas oo kala ah KFC soo galisay sidoo kale waxa ay dadka badankood leeyihiin oo ugu macquulsan ninkan uu ka ganacsado dadka meydka ah oo hilbahooda yani alla ilaahay kaliyaha beerka iyo waxaan ku yiraahdaa sanbabada uu gato taasaan alla ilaahay ugu dhow oo dadka badankood isleeyahay ninka waxa dhici karta inuu suuqa madow uu ka godo waxaas oo ka ganacsado bal adigu maxay kula tahay arintan barta hoose comment-iga ugu reeb ra'yiga